waxaa maanta magaalada Baydhabo dib ugu soo laabtay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Dr. Cali Saciid Fiqi. Diyaaradan uu saarnaa gudoomiyaha markii ay soo cagdhigtay gudaha garoonka Kornel Shaati Guduud ee magaalada Baydhabo. Waxaa gudaha garoonka ku soo dhaweeyay gudoomiyaha koowaad iyo kan labaad qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, siyaasiyiin, odayaasha dhaqanka, waxgarad, dhalinyaro iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulkaasi. Soo dhaweyn kadib gudoomiyaha ayaa waxaa lagu soo galbiyay gawaarida aan xabadu karin kuwaas oo aqalkooda dambe ku wajahnaa aqalka madaxtooyada ee maamulkaasi. gudoomiyaha koowaad ee baarlamaanka Koonfur Galbeed Maxamed Cabdiraxmaan Nuur ayaa warfadeenada kula hadlay hoolka baarlamaanka Koonfur Galbeed. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. ugu horeen gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cali Saciid Fiqi dhammaan xildhibaanada gudoomiye ku-xigeenka labaad baarlamaanka Shamso dhammaan warsiin salaam kadib mudane gudoomiye soo dhawow magaalada Baydhabo ku soo dhawow waxa ku soo dhaweeyay xildhibaanadaadii marka soo dhawow. intaa kadib Dr. Cali Saciid Fiqi ayaa ugu dambeyn soo koobay ujeedka safarkiisa iyo sababta ka dambaysa. dhammaan xildhibaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya asxaabta kale oo maaragtay bulshada ka socoto gudoomiyaha haweenka Shabeellada Hoose iyo inta aanan hadda u jeedin aan arkayn oo meeshan joogto dhamaantiin waa salaamantiin. salaanka dib aad baan ugu faraxsanahay inaad maanta aad igu soo dhaweysaan magaalada Baydhabo oo aan ka maqnaa muddo ku dhawaad bil ah. marka muddadaas bisha ah waxaan ku maqnaa dalka Mareykanka oo arrimo gaar ah aan ku maqnaa marka sidaas darteed waxaan ka soo noqday muddo laga joogo hal usbuucaas muqdisho aan joogay oo maaragtay arrimaha deegaanka ku saabsan, gobolka ku saabsan, state ku saabsan, doorashooyin ku saabsan ayaan maaragtay ku mashquulsaneen. marka dhammaantiin waa idin salaamay waqti aan soo helayna hadduu Ilaahay yiraahdo soo dhaweynta ay soo dhaweyseenna khayr Allah idinka siiyo waa ku mahadsantiin. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد يخشير جيتو RTN TV Baydhabo.